Bismillahi Raxmaani Raxiim. Wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Haddii Alla qadaro waxaan wadaagi doonaa muuqaal yaro kooban aynu kaga warramayno waddooyinka guusha. Qof kastaba wuxuu jecel yahay nolosha inuu guulaysto ama lagu tilmaamo guulayste. Qof kastaba qalbigiisa waxaa ku jira himilooyin aad u fara badan oo uu jecel yahay mar nolosha ka mid ah inuu xaqiijiyo. Haddaba qof kasta ma xaqiijiya hadafka uu doonayo inuu gaadho? Waa maya. Tiro kooban ayaa ahdaaftooda ama yoolka ay leeyihiin ka dhabeeya. Haddaba marka aad doonaysa inaad waxaad doonaysa gaadho, maxaa lama huraana? Qodobka koowaad, marka u horeysa arrinkaaga Ilaahay u dhig. Sababtoo ah Ilaahay markasta oo taladaada iyo arrinkaaga gacanta u geliso wuxuu ku waafajinayaa sida saxda ah. Qodobka labaad, horumari naftaada oo aqoon isku hubee, waayo aragnimo isku hubee, xirfadna isku hubee. Qodobka saddexaad waa inuu jiraa doonitaan. Haddii aad waxba doonahaynin meel gaari maysid. Laba, kolka aad waddada ku dhacda ama aad hilanka qabsatana waa inaad joogtaysaa oo dabayluhu waa inaanay ku liicin. Afar, waa in aad yeelataa go'aan xadiida oo aan ka noqosho lahayn ilaa aad ka gaadhayso bardhamaadka. Waad ku mahadsantahay muuqaalkan yare kooban aan kugula wadaagay xogtaa yar. Aad baad u mahadsantahay.